بحدا بدي ما حد عيا هدي تاسدعده لعلك ترضى بإلهي لي شو يكوف ضدانسا نلشوا وكوف ضدانسا صلاة دي تسبيح علماء دبر بابا وحيد هذا هو هل الصلاة إلا تسبيحات صلاة لفت يدبا ميتها هي تسبيح مو يعني وإلهي القرآن كوحو كنت المامية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إلهي وحو الشيخية قريو لا ينفري إنه نسنو إلهي بيوت ديسة مساجدة والله ينفري إنه إلهي يقول تصبيح سنو ذكر كوضنا يسبح له فيها بالغدو والآصال مفسرين تبربا وحيلين والصلاة بلات المامية قل هورية قل دبابا الله يقول تصبيح سنة وأي وحي علماء ذو إلى هذا من أهم ما يشتغل به المصلي في صلاته هو التصبيح وحيابها وين إنك تكنيا وكن مشغول أبوا تصبيح والنبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية بن الحكم نين saxaabiya oo aan markaa aqoontiisu badnayn ba salaada soo galay dabeetana iyadoo salaada lagu jiro salaadana waagi hore waa la hadli jiray waqumu lillahi qaanitiin intaanay soo degin salaada adigoo ku jira baad odhanaysaa war hebel oo fadhiiso ama waxaa qabo waa la iska hadli jiray hadalku markaa mamnuuc ma ahayn kadib waxaa soo degay quraan tilmaamaya marka salaada lagu jiro inaan wax kale la samaynin qaanit la ahaado saxaabi aan warkaa isagu la soconin ba iyadoo safkii salaada lagu jiraa mid hindhisay alxamdulilah markuu intuu halkaa ka hindhisay buu taxmiidi iyo wixii la samayn jiray khaarij salaam marka la joogo ayuu la yimi dabeetana saxaabadii way yani u tilmaameen inaanu samaynin waxaas wuxuu arkay iyadoo aad isha loogu gubayo haddana wuu iska hadla wuxuu yidhi war hooyadayda ka goblantee maxaa iga eegaysaa muu tilmaamo warkiisiibuu iska sii watay markii salaadii laga baxay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war waa kuma ninka saa yeelaya waa aniga buu yidhi ilaahay rasuulkiisu ima maagin ima caayin ima haydaartay buu yidhi weligay macallin ka fiican ma arag kaalay buu igu yidhi bes waanu imi buu yidhi markaanu imina wuxuu igu yidhi ina haadihi الصalaaة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس صلاة ورك ضدك وحكم كصوبا صلاة دحدة الغلي ماذا مشرب يقول إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يقول صلاة وتصبيحات هي تكبيرات هي قرآن آخر سوية صلاة أنت بيقول بدنطي هاي علماء إلى هذا صلاة التصبيح بالغو بلابا الله أكبر مركز هذا محد بلوضة افتتاحيات كقيبة كم إذا تصبيحة سبحانك اللهم وبحمدك أما الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة افتتاحيات كصلاة اللغو بلوضة قيبة كم إذا وحويان وتصبيح مركز الركوع محل سماية سبحان ربي العظيم بالله هذا وتصبيح مركز السجود محل سماية سبحان ربي الأعلى بالله هذا وتصبيح هدارت فاتحة قورنا هذا الصوت السلام تم حاد سمينيسا هل كفاتحة التصبيح ولا بدله وتصبيح سنيسا هدو إمامكم قفه وسيدي صلاة الاسكوغا وحان حين وسماية محل سماية سبحان الله بالله هذا وتصبيح marka salaada laga baxo maxaa la bilaabaa subhanallah 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 wa tasbiih waxay dhaahdaan waa toddoba meelood oo kamida mawaadicu salaada toddobada la tasbiixsado idan salaada lafteeda waxaynu oran karnaa Umar bin Khattab waxa laga sheegay subhatu duha baa oran jiray tasbiixda barqada yani waa salaatu duha baa loo jeedaa idan salaada acmaasha ugu weyn la qabtaaba waa ina tasbiixsato waxa kaloo quraanku ina baraya oo ilaahay rasuulkiisa loo sheegay waqtiyada aad baraadhana hadaynu ka soo warranay marka dhibta la haysto ee dhibtu kugu dhacdo maxaa la sameeyaa baynu nidhi tasbiixaadka la badiyaa waqtiga barwaaqada maxaa la badiyaa
quraanka ilaahay wuxuu nabiga u tilmaamay alayhi salaatu wassalaam inuu tasbiixaadka badiyo bini aadamku marka uu baraaro inta badan ilaahay wuu ilaabaa waxyaabo kale ku mashquula aadanahan dambe aynu aragnayna cadalaadkiisa buu soo bandhiga maalinta xorriyadda maalinta la dhashay maalinta ay dadku maxay sameeyaan yani dawladdu waxay muruq leedo dhan bay soo bandhigtaa Soomaaliya xayaar iyo boodbood baa la bilaabaa Soomaalidu markay calanka qaadatay maxay bilowday dalkaalay carabi calanka walaale hees baa la bilaabaa iyo badhbadhaadnay kacaanku markuu dhashay yani kibirkaa la bilaabaa bini aadamku inta badan marka uu waxelaabuu kallaa ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istagna bini aadamku markuu waxhelo ayuu kibirkiisu bilaabmaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi marka aad guulaysato aakhir suurad ahaan qur-aanka u soo degtay waa suuratu nasr kaamila ilaahay wuxuu nebiga ku yidhi idaa jaa'a nasru llahi waalfatx hadduu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashadiisa haddaad hesho nicmo aad guulaysato markii hore wuu cidhiidhi baa haysta waxaa la yidhi markaa cidhiidhigu ku haysto fasabbix bixamdi rabbik baa lagu yidhi markii hore uu cidhiidhiga ku jiray markii uu nicmaystay dowladnimadii islaamigii dhalatay gaaladii quraysheed uu jebiyey maka uu furtay waxaa bilaabmay qabaa'ilkii inay koox diinta u soo galaan caamil wufuud kolba qabiil baa yimaada maca boqorkiisii ama suldaankiisii ama caaqilkiisii isagoo wata oo la yidhahdaa reer hebel oo raba inay islaamaan baa madiine soo galay wufuuddii baa tiro badatay nebiga u imanaysay awalla qof qura markuu is idhaha diin u sheeg mid baa daba socdoo lahaa waa beentii ama waa saaxir ama waa kan markana dadkii oo dhan baa diinta soo gelaya oo jamaaca u soo gelaya koox ilaahay wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'a nasru llahi waalfatx haddii uu kuu yimaado ilaahay subxaana wa tacaala guushiisu iyo furashadiisa iyo nasriga haddaad aragto oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo ilaahay diintiisa kooxu soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi nebiga markaa ma badhbadhaadha qaad baa lagu yidhi ma ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u tasbiixso adigoo mahadnaqiisa ku dheehaya subxaana allahi wa bixamdihi dabadi oo weliba wastakfirhu wixii uun gaabis ama nawcun maa kaa dhacayna istikfaar ka dabagee waxaad camal samayseen oo dhamm ilaahay nicmadu idin siiyey uma cuntanto sidaa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa jannada qofna camalkiisa kuma galo macnaheedu waxa weeyaan jannada camalku ma gooyo laakiin sabab buu u noqdaa bima aslaftum iyo bima kuntum tacmaluun baa'i sababiya sabab buu u yahay laakiin uma aha amankii ma aha ma gooyo ilaahay wuxuu ku yidhi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaasi dhacdo tasbiixsaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba haddaad dhibi ku hayso iyo haddaad badhaadho ku hayaba labadaba tasbiixda lagama maarmo labadaba marka aad dhibtu ku haysatana ilaahay dhibtu kaaga faydaya waa kow qalbigaaguna wuu ku samaanaya waa laba marka badhaadhuu ku haysta haddaad tasbiixda badisana cujbiga iyo kibirka iyo isla weynida iyo xanuunada qalbiga ku dhaca kaa baxaya waxaad noqonaysaa qof muslim oo mutawaadica oo aan kibir iyo qooq haynin qof adduunku gacantiisa uu ku jiro ee aanu qalbigiisa degin qof alle ka baqaya badhaadho iyo barwaaqaba iyo dhib iyo kadeedba ilaahay ka cabsanaya haddaba ilaahay kitaabkiisa waxaa rabbi inooga warramaya kownkan aynu ku noollay dhammaantii inuu tasbiixsanayo waxaynu dhex degannay kown dhammaantii tasbiixsanaya adigu ha noqonin ka khilaafa aqalaynta inta ilaahay diiday ayuunbaa mukhaalif ah ayaa ah inta tasbiixda ku yartay ama diidan ama kownkaynu universka dhammaantii wuu tasbiixsanayaabaa qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya 13 aayadood oo 11 suuradood oo kale nooca ku jira ayaa dhammaantood tilmaamaya kaa'inaadkaynu la noolay inay tasbiixsanayaan fii suurati aracd
في سورة الإسراء، في سورة الأنبياء، في سورة التوبة، الصبا، في سورة الصاد، حديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن. صور كاسو دان إلهي وحو كورميا كون كان ku noolahay inuu tasbiixsanayo. ويسبح الرعد بحمده وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. إلهي وحو كورميا buuraha shimbiraha daruurahan iyo onkadkan iyo hilaacan iyo waxaan baxaya kaa'inaadkoo dhamm inuu tasbiixsanayo. tusabixu lahu الsamaawaatu الsabcu wاlأrض waman fiihinna. ilaahay wuxuu leeyahay samaawaadka toddobada ah iyo dhulka iyo waman fiihinna waxa ku hoos jiraaba waa u tasbiixsanayaan. wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliiman gafuura. dunidaba wax ma jiraan baa ilaahay leeyahy ilaa iyo ilaahay buu u tasbiixsanayaa, laakiin idinkaan garanaynin qaabka tasbiixdooda ay u socoto. idinkunbaa fiqigu idinku yariyey fahamka aa fahmi lahaydeen jamaadaadkan iyo noolaha kan iyo makhluuqaadkan qaabka ay u tasbiixsanayaane. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlأrضi wالطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun. iyadan arkayn baa ilaahay leeyahy waxaa cir iyo dhulba jooga iyo shimbiriba iyagoo baalasha kala faafinaya inay ilaahay u tasbiixsanayaan. cid waliba qaabka ilaahay ugu cibaadaysato way taqaanaa, ee idinkunbaa fiqigeedu idinku yaryay salaadooda iyo tasbiixooda idinkaan fahmaynin.